السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan noola soo xiriiray magacaygu Cusmaan waxaan joogaa wadanka Canada waxaan doonayaa inaan ku siiyo warbixin kooban insha Allah ku saabsan ganacsigeena iyo sidaad uga faa'iideysan kartaa insha Allah ta'ala adduunka meel kastood ka joogto biidnillaahi kariim warbixinta walaal waxay u qaybsami doontaa saddex qaybood qaybta ugu horeysa waxaynu kaga warramaynaa insha Allah shirkadda iyo taariikhdeeda qaybta labaadna wax soo saarka shirkadda qaybta ugu dambe ee saddexaadna waxaynu kaga hadli doonaa insha Allah siyaabaha faa'iido uga heli karta shirkadda ama dhaqaale aad uga samayn karto biidnillaahi kariim waxaan ku soo gunaanadeynaa warbixinteena waa maxay talaabooyinka aad qaadayso haddii aad go'aan ku gaadho ganacsigani inaad ka faa'iideysato insha Allah walaalo waxa weeye shirkaddan magaceega waxaa la yidhaahdaa Forever Living Product Company waxaana la aasaasay 1978 24 sanadood muddo ku siman ayay hadda ka shaqeysaa adduunyada maasha Allah tabarakallah ilaa ay ma garanaysaayay waxay ka shaqeysaa wadano fara badan oo gaadhaya 160 wadan wadannadaas ay ka shaqeyso walaal waxa kamid ah wadankeennii oo hadda ay muddo ilaa dhowr sano ay ka shaqeyso alxamdulillah company-gu waxa ka faa'iideysta oo ka shaqeeya dad gaadhaya ilaa 10 milyan oo qof dad ku dhow sanadkan hadda inaga dhamaaday ee 2020kiina waxa uu ahaa sanad ay soo galeen dad gaadhaya ilaa iyo 1 milyan oo qof walaal company-ga wuxuu leeyahay taariikh aad iyo aad u weyn runtii ma garanaysaa waxa weeyaan companiyadii dadkeena soo maray ama sidii adduunyada ka jirana waxyaabo badan ayaa uu kaga duwan yahay number 2 company-gu waxa uu kaga duwan yahay taariikhda uu jiro oo ah taariikhda maasha Allah aad iyo aad u facweyn number 2 waxa uu kaga duwan yahay company-gani companiyadii hore aynu aragnay ama se waxa weeyaan shirkadka kale caalamka ka jiraba alaabta uu soo saaro ama se wax soo saarka uu sameeyo company-gani sidaas screen-ka kaaga muuqata company-gu waxa uu leeyahay beero waaweyn oo waxa weeyaan geedka dacarta uu ka baxo oo runtii ma garanaysaa aad u waaweyn ugu yaraan maalintii waxa lagu qiyaasaa geedaha uu gooyo geedkani ee uu isticmaalo ilaa 1 milyan oo geedkan haddii aynu in yar faa'iidadiisa istul taagno runtii waa geed aad iyo aad faa'iido fara badan u leh jirkeena gudaha iyo dibadda labadaba faa'iido aad weyn buu leeyahay jirkeena dibadda gudaha waxa uu faa'iido u leeyahay dheefshiidka qofka ayuu aad iyo aad u wanaajiyaa sidoo kale waxa weeyaan ciladaha caloosha dhan buu xalliyaa awood badan buu siiyaa qofka ama tamar fara badan buu siiyaa يعني واجد ما قرنا ساي لا يدهدو بروفاتيك ميرسن أو كلا لا يدهدو وحويان إلا يحليه هراء أنبيدين حتى استعمال شرين ويحكوا داوين شرين ويان مركا واجد آدية تاريخ وين له إن الدوية أنا ما قرنا الشركات فرا بدني أي ترتن وجود شرين جيد كان يفايد ديسة ما شاء الله تبارك الله haddaba walaalo company-gani haddii aad isla garanay company-gan iyo taariikhda uu leeyahay company-gu waxa weeyaan ma garanaysaa koritaan fara badan buu leeyahay muddadii uu adduunyada company-gani jiray ilaa shirkad fara badan ayaa waxa weeyaan ma garanaysaa xilliyo adag ay soo mareen awgeed waxa weeyaan daaqada ka baxay laakiin company-gani 43 sanadood ayaa uu jira aniga kula hadlaya waxa weey company-gani waa uu iga daawan yahay maasha Allah tabarakallah marka intaas ayaaba waxa weeyaan kalsooni weyn runtii qofka cusub ee company-gani markii koobaad ee uu maqlay ay tahay ugu filan qanaacad maasha Allah yani taariikhda company-ga ugu filan waayahay haddii aynu warbixinta qaybta labaad u gudubno company-gani waxa uu soo saaraa waxyaabo aad iyo aad u fara badan waxyaabaha uu soo saaro waxa weeyaan badankood sidaynu sheegnay geedka dacarta ayay ka yimaadeen iyo sidoo kale bee products yani sidoo kale waxyaabo looga faa'iideysto shinnida iyo kheyraadkeega ما شاء الله تبارك الله برودكتية أما على بفر بدن بديعة فر بدن أو لقى صوت درايف جري أما سل لقى كيني شني ده حقي ده أياتشرا ما شاء الله تبارك الله كمينيجا علابتي سو حنو كلا قاضينا صدح قيبود قيبت كوبد وحوي وقيبت عافيماتك قيبت اللبادنا وقيبت مارين تميسانك قيبت صدحادنا وحويان قيبت قرحنتا ما شاء الله تبارك الله قيبت عافيماتك هدي إنه يرستول تاجنو waxa kamida productiyo ama cunaawiyayaal ama fiitamiino alaabe herbal ah oo runtii aad u wanaagsan oo caafimaadkaaga kor u qaadaya difaacaaga xoojinaya
faa'iideeya runtii ma garanaysaa aadna baahidooda ay ugu badan tahay dadkeena tusaale ahaan waxa kamid ah qaybta gaaska oo kale oo garanayso ma garanaysaa dhibaatada uu leeyahay ama ma garanaysaa يعني دبته ku haya dadkeena soo kale waxa kamida qaybta ma taqaanaayay bawasiirta oo kale lafa xanuunka jilba xanuunka yani productiyo ka caawinay waxyaabaha soo dhan ayaa ku jira qaybta taranka ee ragga iyo dumarka ayaa iyaduna ku jirta ma sha Allah tabarakallah taranka markaan leeyahay raggi baa soo isgalaya waxa soo isgalaya soo kale dumarkii ma sha Allah tabarakallah hormoonada dumarkooga in la balance gareeyo ama balansirkooga productiyaad ugu fiican oo vitamins ayaa jira marka qaybta caafimaadka markaan leenahay waxaad ogaataa dadka qaarkii baa laga yaabaa inay isweydiiyaan anigu dhakhtar ma yahay marka sideen alaabta ku iibin karaa alaabteenu maaha alaab daawo ah alaabteenu waa alaab supplementiya waa alaab herbal waa alaab ma garanaysaa ka wanaagsan productyada kale ee farmasiga yaala ee dhakhtarku qoro because alaabahaas waxay leeyihiin side effect bay laakiin kuwani waa alaab dabiici oo natural oo safe oo ammaan weeyaan marka haba yaraatee wax dhibaata oo ay leedahay ma jirto qaabka loo isticmaalayna insha Allah ta'ala wad baranaysa ma garanaysa no problem qaybta labaad alaabteena waa qaybta maareynta miisaankuna waxa weeyaan ilaa 3 qaybood ayaa miisaanka loo maareeyaa miisaanka guud in la iska wada rido oo miisaanka ilaa la iska wada dhimo program ma garanaysa lagu xalliyo dhibaatadaas ayaa jirta oo sina la yiraahdo programkaasi 9 maalmood ayuu ilaa miisaan aad u weyn ka goynaya ma sha Allah waxa laga yaabaa dad badan aad garanayso almost la tacaalay miisaankooga si dhib yarna iskaga ridaan doonaya oo cudur lahayn oo dhibaato lahayn marka insha Allah way ka faa'iideysan karaan programkan sidoo kale program ama barnaamij miisaanka kor loogu qaado ayaa jira oo loogu talagalay sidoo kale waxa jira alaabteena qayb caloosha lagu jira ayaa jira ma sha Allah ma garanaysaa marka dad u baahan alaabtani almost wad garanaysaa taban alaabteena qaybta saddexaad waxa weeye qaybta qurxinta waxa soo isgalaya qaybta timaha daryeelka timaha daadanaya timaha jajabaya kuwa gogo'aya productiyo adkaynaya runtii aad u nafaqeynaya timaha xoojinaya oo runtii aad u fiican oo runtii the best product in the market aan oran karno alaabihi ugu wanaagsanaa suuqa yaala weeyaan ee timaha lagu talagalay ayaa ma garanaysaa inoo yaala qaybta kale waa qaybta daryeelka wajiga ma sha Allah waxaad ogtihiin walaalayaal dad badan oo Soomaaliyeed ama hablaheeni quruxda badnaa in badan oo kamid ah waxa weeyaan chemicals badan ay isticmaaleen dhibaatooyin fara badan ay ka dhaxleen maxay ka dhaxleen gudguduud badan oo wajiga ku yimiday midabkii oo isbedelay haar bay ka dhaxleen finan bay ka dhaxleen intee leeg bay baahidaasi jirtaa baahi aad weyn weeyaan marka insha Allah productiyo aad u anfacaya ayaa walaalayaal halkan ay ka heli doonaan oo runtii ma garanaysaa haday finan wajiga ay jiraan iyo hadii ay haar jirto iyo hadii ay midmado jirto iyo hadii ma garanaysaa wax weeyaan gudguduud u leeyahay ay nooc dhamaan wixii aad u baahnayd wajigaaga si dabiici ah inaad ugu daryeesho dhan ayay noo يلا إن شاء الله dadka aan iyagu wajigoogu wax ma garanaysaa dhaawac lahayn ama dhibaataan uu soo gaarina productiya isku qurxinayaan oo aad u wanaagsan ayaa jira alaabta productska creamaadkeena inuu haynaa ee qurxinta qaybta qurxintu aad bay u ballaaran tahay insha Allah ta'ala iyagoo faahfaahsan ayaad heli doontaa sawiradooda iyo catalogooga insha Allah ta'ala qaybta kale waa qaybta daryeelka qofka la yiraahdo ee daryeelka qofka ee uu sida maalinlaha ugu baahan yahay qaybtan waxa kamid ah daawada ilkaha oo faa'iidooyin fara badan leh ilkaaga ku cadeynaysa udgoon badan afkaaga ka dhigaysa ma sha Allah bright tooth gel baa la yiraahdaa magaceega oo af Soomaali ahaan ah cadeeyaha dabiiciga ah ee ilkaaga yani si dabiici ilkaaga kugu cadeynaysa mana laha sunta fluoride-ka inta badan daawooyinka ilkaha oo kale ku jirta sidoo kale waxa weeyaan daawadani ma garanaysaa waxay ka samaysan tahay xabagta shinnida iyo aloe vera ka samaysan tahay ma sha Allah waxa kamid ah qaybta daryeelka maalinlaha ee cadaraantii bay noo yaala waxa ku inoo yaala saabuunihii deodoronadii alaabtu aad bay u badan tahay qayb kala jirta alaabteena oo runtii iyaduna aad u ballaaran oo ah qaybta caruurta soo kale waxa jirta fitamiinkii ciyaalka nafaqadooda kor u qaaday alaabo badan oo caruurta loogu talagalay baa jira soo kale waxa jira alaabteena qayb loogu talagalay xagga shinnida inooga timiday malabkiyo saafiya iyo qaybo kale oo ma garanaysaa xagga shinnida inooga yimiday oo difaaca qofka xoojinaya
ayaa jira maasha Allah tabarakallah tamarta qofkana kor u qaadaya protein oo kalena jirka siinaya marka alaabtu aad bay u badan tahay ilaa 200 oo item dad alaab ku dhow ayaa shirkadani soo saartaa ood ka heli doonto dhammaan adduunka meel kastoo joogtaba alaabtan aad ka heli doonto haddii aynu in yar halka kaga gudubna alaabteena oo runtii dee maasha Allah qofkii isticmaala uu si fiican uga sheekayn karo waxa weeyaan sidee buu qofku hadaba dhaqaale uga sameyn karaa walaal waxa weeyaan mar haddii aad shirkadii ku qanacday alaabtiina aad ku qanacday oo dareentay dad badan oo u baahan in already inaad garanayso tusaale ahaan haar oo kale intaasoo qof baad garanaysaa haar leh waxa weeyaan gaaska oo kale intaasoo qof baad garanaysaa already customerskaagii macaamiishaadii waad haysataa marka sidee baad uga faa'iidaysanaysaa ama se dhaqaalaad uga samaynaysaa guud ahaan 2 jeer baa dhaqaale laga sameeyaa oo laga faa'iidaa shirkadan marka koobaad waxa weeyii inaad ma garanaysaayay shirkadii aad ma garanaysaayay xiriir la samayso isla markaana aad iska diiwaan geliso marka shirkadii aad iska diiwaan geliso ee aad xubin shirkadii kamid aad noqoto shirkadu waxay ku ogoshahay inaad ma garanaysaayay alaabtan si tafaariiqayso oo aad ma garanaysaa si iib geyso adigana waxa laga siinayaa qiimo go'an oo ay shirkadu ay ku gooysay qiimaha ay shirkadu suuqa ugu tala gashay dadka aan kamid ka ahayn shirkada ee macaamiisha ah ee banaanka shirkada ka jooga ayaanad adiguna ku iibinaysaa maasha Allah tabarakallah yani waxa weyn adigii shirkadii isku qiimaad ku iibinaysan shirkadu haday $10 ku iibinayso adiguna $10 baad siinaysaa maasha Allah den waxa weeyaan adigana maxaa laga siinayaa qiimo go'an qiimahana suuqa iyada maamusha marka adigu alaabtiibaad waxa weeyaan ka sii faa'iideysanaysaa badeecada kala duwan ee sheegay ayaad ka faa'iideysanaysaa hadaba shirkadu waxay leedahay darajooyin kala duwan oo qofku gaadho darajada koobaad marka aad buuxiso oo loo yaqaano assistant supervisor waxa aad ma garanaysaayay faa'iidi doontaa laba faa'iido darajadaasi ma garanaysaa labada faa'iido ee kala faa'iidaysa waxa weey ta koobaad alaabtiiba ku jabaysa oo 30% iyo 5 ku noqonaysa isla markaana waxa weeyaan shirkadu waxay ku furaysaa nidaam labaad oo aad dhaqaale uga samayso nidaamkana waxa la yiraahdaa network marketing system yani inaad dhisto waxa weeyaan group dad yani inaad ma garanaysaa shirkadii ku soo xidho because alaabtii adiga ka faa'iideysanaya dadkeeni waa bilaa shaqo wax shaqo ma haystaan hooyooyin badan baa guryaha jooga oo waxa weeyaan waxay ka shaqeystaan la oo fursad la ama shaqo ay qabtaan la dhalinyaro fara badan baa bilaa camal qaarkood waxa weeyaan badaha iyo ay isku tuureen oo soo wada tahriibeen dhamaan waxa weeyaan wadad fursadan u baahan qof kastaan u baahan hadaad waayeel tahay hadaad dhalinyaro tahay hadaad ciroolo tahay hadaad cid kasta ayaa waxa weeyaan chance-kan walaalayaal u baahan maasha Allah dadkaas ayaad ku soo xiraysaa qof kastaana waxa weeyaan sidaad adiguba u shaqeyso u shaqeynaya alaabtan shirkadu si iib geynaya oo si tafaariiqeynaya wax kastuu iibiyana maadaama adigu aad keentay shirkadii waxa weeyaan shirkadu bonus ama lacag commission ayay ku leedahay lacagta commission-ku waxay ku soo dhici doontaa bil kasta 15keeda waxana kugu soo dhici doontaa account-kaaga hadii aad qof ka diiwaan geliso Mareykanka jooga bangi baad samaysan doontaa bangiga kugu soo dhici doontaa ama wadanada kale caalamka oo dhan wadankeena iyo kale insha Allah EFC-gaaga ama saadkaaga kugu soo dhacaysa insha Allah ta'ala wixii xog dheer ee qaabka lacagtaad ku helaysi waxyaabaha soo dhan hadhow markaad shaqeyso ama waxa weeyaan ayaad si fiican u sii fahmi doontaa haddaba darajadan koobaad ee aad gaadhayso sidee baad ku buuxinaysaa shirkadu waxay isticmaashaa lacag u gaara lacagtaana waa points ama waa dhibco tusaale ahaan daawada ilkaha oo kale waxay leedahay ma garanaysaa dhibcayro gooniya qaybta gaasku waxay leedahay dhibco gooniya marka qofku dhibcaha markuu isku geysto intaasoo dhibcood bay isla noqonayaan darajada koobaad waxa lagu buuxiyaa markaad buuxiso 2 dhibcood labada dhibcood waxa loo yaqaanaa 2cc ama 2cc baa loo yaqaanaa marka 2cc oo alaaba markaad gadato dollar ahaan baad u bedelanaysaa hadaad Europe joogto euro u bedelanaysaa hadaad meel dollarka laga isticmaalo joogto labadaas cc baad u bedelanaysaa ma garanaysaa lacagtaada marka wadankii oo kale xarunteena deegaanada Soomaaliyeed waxa ku taala magaalada Hargeysa marka magaalada Hargeysa markaad ka gadanaysaa alaabta labada cc waxay u dhigmaan qofka cusub $480 $480 waxaad ku gaari doontaa darajadii koobaad ee shirkadda hal mar hadaad wada buuxisana wada awooda laba jeer hadaad kala buuxisana wada awooda hadaad doonto wad kala yaryareysan kartaa hadaad doonto dalabka ugu yar oo ah $75 ayaad ku bilaabi kartaa kadib muddo 2 bilood baad haysataa darajadii aad ku gaadho kadib waxa weeyaan darajada maalintaad buuxiso alaabtiiba ku jabtay team baad samayn kartaa group baad samayn kartaa qof kasto shirkadda ku soo dartana waxaad ku yeelan doontaa 30% ayaad ku yeelan doontaa commission ma sha Allah tabarakallah oo ah lacag aad iyo aad runtii u badan 30% lacag aad u badan weeyaan
haddaba walaalayaal boqolkiiba 30 tusaale 480 hadii la xisaabiyo waa 140 marka hadda 5 qof ku soo xidho $700 sama lacag badan weeyaan ma sha Allah kadib walaalayaal waa dadaal doonta darajooyin ka sii sareeya jira darajadaasi darajada labaad ee shirkadda supervisor baa la yiraahdaa iyadana waxa lagu gaadhay muddo 2 bilooda marka aad samayso waana 25 dhibcood markaad buuxiso darajadan waxay kaga duwan tahay darajadii hore adiga kaliya ma aha haddaad yani 3 qof oo aad shirkadii diiwaan geliso oo active ah 3 qof ay active noqdaan muddo 2 bilood gudaheeda darajadii waad gaari kartaa kadib waxa weyn darajo alaabta markale ku jabi doonta kadib darajada saddexaad baad noqon doontaa iyadana 9 qof oo kaliya haddaad keento yani 3 qof adigu aad keentay iyo 3 qof oo ka sii farcaamay tusaalahaan insha Allah taala yani 3 qof oo aad keentay iyo waxa weeyaan 6 qof oo ka sii farcaamay ama ma garanaysaa adu 9 qof oo adiga ka farcaamay hadii aad ma garanaysaa muddo 2 bilood gudaheeda keento oo active ah waxa weeyaan 75 hadii dhibcood wad buuxin kartaa kaligaana wad buuxsan kartaa oo waxa weeyaan qofku haduu kaligiiga wada iibsanaya alaabta dhaado waa uu ku gaari karaa darajadaas insha Allah darajada wax loo yaqaan assistant manager waa darajada saddexaad dhaqaalaad badan buu qofku helayaa oo runtii aan xal lahayn oo sidoo kolba u shaqeeya ay tahay ma sha Allah tabarakallah kadib waxa weeyaan darajada afraad buu gudbayaa qofka uu darajada afraad noqdana waxa uu helayaa qiimo dhimis halkii ugu dambeysay oo ah 48% discount ma sha Allah mar hadda darajadani aad gaadho waxa ku hadhay oo qiimo dhimis ma jirto sidoo kale darajadan hadii aad gaadho dhaqaalahaagu aad buu badanaya qofka cusubeed keento dhaqaalaha ay shirkadu ku siinayso abaalgudkii aad buu badan yahay waxa weeyaan waxana ku bilaami doona dariiq saddexaad oo shirkada dhaqaale uga sameyn doonto dariiqa saddexaad waxa la yiraahdaa hadiyadaha tusaale ahaan hadiyada koobaad waxa la yiraahdaa hadiyada gaariga hadiyada labaadna waxa la yiraahdaa waa dalxiiska shirkada hadiyada saddexaadna waxa weeyaan ma garanaysaa inaad shirkadani share ku yeelato oo profit share aad la noqoto ma sha Allah tabarakallah hadda dadkan aad arkayso wad gaariga uga helay halkana waa jeegaga aad arkayso sanad walba shirkadda la bixiyo ma sha Allah tabarakallah runtii dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan ayaa waxa weeyaan dadaalay oo guulo waaweyn ganacsigani ka gaadhay maalin walbana waxa weeyaan income badan iyo waxa weeyaan ka sameeya insha Allah taala adiguna wad ka sameyn kartaa ninka ugu dhaqaalaha badan leh businesskan ama shirkadani waxa uu joogaa Germany waxa la Rolf Keep sanadkan 2021 bishii April hadda waxa weeyaan bonuskiisii wadiga arkaya wuxuu ahaa 1 milyan iyo 400 oo kun lacagtani ma aha tii maalin laha ma aha tii billaha ee teamka ka sameeysay laakiin waa tii marka hadhow managerka noqoto aad heli lahayd insha Allah taala sanadkan waa sanadkii 2019 wana 1 milyan iyo xogaa aniga alxamdulillah Usman ahaan ma sha Allah sanadkii koobaad sanadkan waxa wayna kan ma sha Allah tabarakallah sanadkan aan bonuskii ugu horeeyay waa shareki mana aha ma garanaysaa kan kii billaha aha laakiin waxa weeyaan kii sanadkii weeyaan bonuskii sanadka runtii halkan waxaad ka arkaysaa walaalaheen Caashe Mustafa oo ah runtii lamaane ma garanaysaa businesskan taariikh weyn ku leh ahna dadkii businesskani wadankeena keenay alxamdulillah ma sha Allah tabarakallah marka walaalayaal kana waa dalxiiskii sanadka weeyaan marka walaalayaal waxa weey businesskan waa business ballaaran qof kastaana uu ka faa'iideysan karo wax shuruudo adagnaanay jirin kaliya waxa laga doonayaa inaad isdiiwaan geliso dalabkaagii koobaadna lagula dalbo oo lagula habeeyo qofka warbixintani ku soo diray insha Allah taala u dir magacaaga saddexan iyo xilliga dhalatay iyo gmail-kaaga u dir account buu ku sameyn insha Allah taala waanu ku diiwaan gelin teamka ayaad ka mid noqon doontaa darajadii koobaadna waad buuxin doontaa kadib teamkaagii baad samaysan waxa weeyaan alaabtina way ku jabi doontaa soo dhawlaalo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rajeynayaa inaan isku aragno xagga tababarka oo waxa weeyaan aan shirkadda kugu soo dhaweeyo oo walaalka Cusmaan oo Canada ka soo salaamaya soo dhawlaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi